فضلا سبسكرايب سار هنا إلابن إناد جنبليل كفرتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan la wadaagi doonaa 5 sababood oo kuu qasbaya inaad basatid shaaha cagaaran. Haddaba waa maxay waxyaabo igu qasbaya inaan badsado shaaha? Haddaba halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa. Lambarka koowaad wuxuu la dagaalamaa calaamadaha dhaqsiga ah ee ah in qofka maqaarkiisa uu ku yimaado duqnimo. Haddaba haddii aad tahay qof da' ah oo soo galayso duqnimo, waxaan aad iyo aad kula talin lahaa inaad badsato shaaha cagaaran. Sababtoo ah wuxuu ka hortagi doonaa in wejigaaga ama maqaarkaaga uu ku yimaado duqnimo degdeg ah. Lambarka labaad wuxuu hoos u dhigaa xaddiga daran ee cholesterolka ee ku jira jirka. Haddaba haddii aad qabto bad cholesterolka, waxaan aad iyo aad kula talin lahaa inaad badsato shaaha cagaaran. Sababtoo ah wuxuu hoos u dhigi doonaa xaddiga daran ee cholesterolka, bad cholesterolka. Lambarka saddexaad sidoo kale wuxuu kordhiyaa dheefshiidka. Sidoo kale wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay in jirka ama miisaanka qofka uu aad iyo aad u yareeyo. Haddaba haddii aad doonaysid inaad iscaateyso, waxaan aad iyo aad kula talin lahaa inaad isticmaasho shaaha cagaaran. Sababtoo ah wuxuu muhiim u yahay qofka raba inuu iscaateeyo. Lambarka afraad wuxuu ka qayb qaataa inuu kala bixiyo lafaha. Lambarka shanaad wuxuu burburiyaa bakteeriyada. Sidoo kale wuxuu ka hortagaa in ilkaha ay ku yimaadaan burbur degdeg ah. Waa ku mahadsantahay daawashadaada. Fadlan haddaa ku cusub tahay channelkan, subscribe ha iloobin si aad nala socoto casharada.